argagixisanimo, dil, dhiig, cunfi iyo baraka. kuwaasi waa sawirka qiyaaliga ah oo ay mulxidiintu ka bixiyaan diinta, iyadoo khudbadahoodu ay ku soo gudbiyaan sawir sheegaya in masiibada adduunka ay tahay diinta iyo in wanaag ku guulaysan doono adduunka diin la'aan ama haddii diinta laga saaro dunidan. haddaba waxaa mudan in la isweydiiyo, dunidu marnaba miyay ahayd dagaal la'aan? dagaalka xaqiiq ahaantiisa, taariikhdiisa oo kooban, qoditaan lagu sameeyey Kenya gaar ahaan jasiiradda Turkana, wuxuu muujinayaa in laba kooxood uu dagaal ku dhex maray kaa oo dhacay 10 sano ka hor. tiradaasi sax weeye, 10 sano ka hor, taasi oo macnaheedu tahay ka hor nebiyadii diimaha loo nisbeeyey al-Ibraahimiya. haddaan u dhaqaaqno xagga Giriigga, dhulkii falsafadii hore, gaar ahaan filosofkii Giriigga, Heraclitus qiyaastii 500 sano ka hor dhalashadii Masiixa wuxuu yidhi hadalkiisii caanka ahaa, dagaalku waa hooyada wax walba oo asal ayuuna u yahay wax kasta. sidaas oo kale hogaamiyaha Shiineyska Zhang Tazo oo qoray buug la yidhaahdo Art of War oo ka mid ahaa buugaagta ugu caansan, wuxuuna qoray xili lagu qiyaasay 500 sano ka hor dhalashadiisa Masiixa. haddaba dagaalku wuxuu u muuqdaa inuu yahay xaqiiq taariikhi ah oo aadanuhu yaqaano, kaasi oo caam ku ahaa adduunka oo dhan, xaqiiqdiisana taariikhyahanadu ku heshiiyeen oo weliba isku waafaqeen, sida ibnu khaldun oo yidhi dagaalku weligiisii wuu jiray siduu ilaahay u abuuray abuurkiisa. waxaa isla macnahaasi qoray taariikhyahanka reer Maraykan ee caanka ah Will Durant oo markaa ku tilmaamay inuu dagaalku asal u yahay taariikhda aadanaha, sababtuna ay tahay dagaaladii badnaa ee dhacayeen. haddaan u gudubno qarniyadii dhexe, dadkoodu waxay ahaayeen kuwo ka warqabo xaqiiqdaasi. Niccolo Machiavelli oo ka mid ahaa dadkaasi wuxuu wax ka qoray dagaalka iyo farshaxankiisa. Thomas Hobbes wuxuu arkay cunfigu inuu ku dhisan yahay aadanaha. Karl Marxna wuxuu ka dhigay cunfigu inuu yahay curiyaha taariikhda. haddaba waxaa muuqda in dagaalku uu yahay waxyaabaha ugu caansan taariikhda aadanaha, kii hore iyo midka casriga ahba. mana aha wax cusub oo la yimid diin gaar ah. haddaba waa inaan tijaabinaa mala-awaal kale. dunida runtii miyay noqon doontaa cunfi la'aan haddii diin laga saaro? yurub xilliga iftiiminta iyo goobta dhiigga. yurub ma aha sidii waagii hore ay ugu xirnayd kiniisadaha ama masiixa, bal waxay noqotay yurub iftiimin iyo maandoon. tani waa mid ka mida macnaha ugu caansan ee la isku dayay in la xaqiijiyo xilligii iftiiminta enlightenment, iyagoo adeegsanaya fikradahooda iyo falsafooyinkooda oo dhan. marka reer yurub waxay isku dayeen in ay aasaan oo ay ka takhallusaan diinta, ama si kale haddii loo dhigo, waxay dadweynaha ka qariyeen diinta si aadanuhu u hanto kaalintii ilaahay iyo si ay ideolojiyadoodu ay u gasho booska diimaha. haddaba cunfigu miyuu dunida ka baaba'ay? waxaa soo baxay falsafooyin la dagaalamaya diimaha oo muujinaya inay xambaarsan yihiin wanaagga aadanaha, sida ishtiraakiyada oo kale oo ah mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee xasuuqyada taariikhiga ah, sida gacantii Stalin ee midoogii Suufiyeed iyo Mao Zedong ee Shiinaha. heer ay gaarto qof kasta oo mucaarad ku ah ishtiraakiyada inuu masiirka ka xun yahay midka mucaarada diimaha waayadii hore iyo weliba bilowgii marxaladaha casriga ah. yurub waxay gashay dagaalkii labaad ee adduunka oo ay hogaaminayeen dalal aan diin ka soo jeedin oo calmaaniyaddu u ahayd aasaaska xukunkooda, laakiinse kuma filna inay joojiso 17 milyan ee ruux in la dilo iyo 20 milyanna la dhaawaco oo weli la laayay fikir aan lug ku lahayn diin, laakiin la xiriirta sida hogaamiyaha xisbiga dowladda, dhulka iyo danaha dalka. si kale haddii loo dhigo, dadka waxaa loo quuray in loo dilo wax walba oo aan ahayn diin keliya. 21 sano kadib dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa dhacay. masiibadii ahayd tii ugu weyneyd adduunka waa dagaalkii labaad ee adduunka, kaa oo ka tegay burbur guud oo jiitamayay 10 sano ayadoon ku bilaabanin wax lug diin ku leh. waxaana lagu qiyaasaa dadkii ku waxyeeloobay 60 ilaa 80 milyan oo ruux oo isugu jira dil, dhaawac iyo barakicin. waxaa roobka loogaga dhigay dadkii adduunka ku noolaa sawaariikh iyo bambaanooyin, hase yeeshee sawaariikhdaas ma ahayn sawaariikh diimeed ee waxay ahaayeen sawaariikh diinlaawe. dunida waxay dhadhamisay markii ugu horreysay burbur bambaanooyin nukliyeera oo ahayd dagaal diinlaawe oo lagu xasuuqay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki.
awoodaha waaweyn waxay ku dagaalamayeen dagaaladooda ugu cunfi weyn iyagoo oo ku hoos dhuumanaya magaca ka badbaadinta dadka cunfiga inkastoo run ahaantii awoodahaasi iyagu ku dhaqmayeen isla cunfiga una ogolayn dad kale inay ku dhaqmaan ama sida uu u dhigay Richard Winters dadku waxay ku fulin karaan xabaalwadareedyo iyagoo isticmaalaya magaca bini'aadanimada ishtikaaliyada aragtida Mareykanka gobonimada Yurub iyo ilaalinta danaha ganacsiga marka cunfiga kaliya ee laga xayuubiyay sharciyadiisii waa midka ay sameeyeen dadka diinta leh xitaa haddii ay sabab u ahayd waxaan diin xiriir la lahayn sida ka hortagga gumaystaha oo kale abuurida cadowga khuraafaadka cunfidiimeedka ah waxaa idin siin doonaa adeega ugu xun waxaan idinka reebi doonaa cadowga Mikhail Gorbachev la taliyaha madaxweynaha midowga Suufiyeed ayaa sidaas reer galbeedka ku yiri markii Berlin dhacday marka haddii ay tahay sidaasi oo dagaaladu yihiin xaqiiqo taariikhi ah burburkana uu ka yimid nidaamyo aan diin ahayn oo waliba burbur ka xoog badan midka diimeedka ah haddaba waxaa mudan in la isweydiiyo maxaa ka dhigay khuraafaadka in diintu ay tahay sababta cunfiga aragtidaasi oo waliba ku faafsan bulshada xagga waxbarashada warbaahinta iyo goobo dhaqameedka Freud ayaa waxaa noo sheegay xiriirka ka dhaxeeya xubnaha koox kasta waxa markasta halis gelinaya cunfi qarsan marka sidii looga takhalusi lahaa cunfiga nagu dhex jira waa in aan ku toosinaa cunfigaasi wax anaga naga baxsan marka aynu ka hadlayno arrinta ilbaxnimada reer galbeedka waxay u ahayd marmarsiyo diyaarsan cadowguna joogo bariga adduunka aad buu u dambeeyey waxaana ku batay cunfi aan caadi ahayn marka waxaa naga go'an in aan ka badbaadino shartooda sheeka baraleydan waxay ku hirgashay gacanta gumaysiga barigii hore waqtigaasoo gumaysigu ku tilmaamay reer bari cunfigoodu wuxuushnimo taa oo lala jeedo in cunfigu reer galbeedku uu yahay mid wanaagsan oo weliba uu yahay xalka ugu habboon ee lagu baabi'in karo cunfiga aadka u foolxun ee reer bariga sida ay u qoreen dad ku xeel dheer falsafooyinka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta waxaa la mid ah macnahan sida Samuel P. Huntington uu ku qoray buuggiisa The Clash of Civilizations iyo sidoo kale Francis Fukuyama oo ku qoray buuggiisa The End of History marka halgan kasta oo aan ka ahayn halganka cadaanka waa mid aad iyo aad u xun oo weliba ah argagixisanimo oo aan la aqbali karin laakiin marka laga hadlayo dagaalada adduunka baabi'inta Hindiya iyo gumaysigii bariga ilaa aan ka gaadhno meesha ugu cunfi badnayd sida dagaalka Afghanistan iyo Ciraaqba intaa oo dhan waxay leeyihiin cudurdaar wanaagsan fikradahan ayaa waxaa lagu socodsiiyey fikradda Orientalism and Anthropology taasi oo ay arkaysay dadyowga lagu gumaystay aragti hoose si ay u siiso garab aragtida gumaystaha ee muhiimadda abuurista cadowga runtii sidaas ayay u dhacday islaamku wuxuu noqday cadowga kale oo bedelay midowgii Suufiyeed kadib dhicitaankiisa taasi macnaheedu ay tahay arrin socota ah ee soo saaridda cadowga oo cadowgaasi aan xaq u ahayn in uu noqdo mid cunfi leh oo halkaa kuwa kale ay xaq u leeyihiin oo qiyamkoodu iyaga keliya inay isticmaali karaan cunfiga haddaba anagu nama hortaalo diin leh cunfi aan caadi ahayn iyo galbeed nabadoon oo caqliyeysan laakiin waxaa horteena yaala cunfi oo la rabo in loo yeelo sharci oo weliba la baabi'iyo sharci kasta oo aanan ahayn midkan hase yeeshee isla cunfigan weligiis wuu jiri doonaa ilaa uu guulaystu qoro taariikhda oo weliba uu hoosta ka xariiqo cidda uu doonayo iyo siduu u doonayo xaqiiqda islaamka jihaadka iyo dagaalka cadaaladda leh waajibnimada jihaadku waa wasiilo ee ujeeddo ma ahan ujeedadu jihaadku waa hanuun iyo wax la mid ah la dagaalanka gaaladuse ma aha wax loo jeedo oo xitaa hadday suurtoodo hanuunintu yacni daliil la caddeeyo iyadoon la dagaalamin baa ka habboonaan lahayd jihaadka sidaa ayuu yidhi al-Khatiib al-Sharbeeni oo ka mid ahaa imaamyada shaaficiyiinta ee qarnigii 10aad marka dagaalku wuxuu soo jiitamayay weligiiba wuxuuna ku xardhan yahay garashada bini'aadamka hase yeeshee wuxuu lahaanayay midabyo kala duwan marka haddaanan marnaba laga fursanaynin waxaa lagu kala soocayay waxa uu ku bilowday dareenkaasi xaqiiqadiisa uuna islaamku ku saleeyey uma imaan in uu iska caabiyo dabeecadda aadanaha oo beeniyo iskana indhatiro umana imaanin in uu soo bandhigo aragti romansi ama sheeka bareley ah oo aysan suuroobaynin xaqiijinteeda wuxuu u yimid in uu layliyo dabeecadaasi oo u wajiheeyo dhanka yoolkiisa ugu wanaaga badan rugtan uu islaamka ku ambaqaadayo
marka uu kala shaandhaynayo xuquuqda oo uu u qaybinayo iyadoo taas la tixraacayo ayay tahay habdhaqameedka qiyamka iyo xanuunka ee ku xeeran sharaa'icda islaamka dejiyey midka ku suntan hufnaan dhaqameed. hufnaantaasi waxaa ka mid ah jihaadka oo ah sharci dejin yoolka laga leeyahana uu yahay dhowrista insaanka ama aadanaha iyo in la hago fahamka dagaalka. sidaa darteeda hadafka jihaadka ee islaamku ma aha dil oo keliya ama qof lagu qasbo diinta inuu soo galo, maxaa yeelay islaamnimadu kama ansaxayso qof aan qirsanayn ama rumaysnayn tiirarkiisa. hadafku wuxuu yahay in la difaaco ummadda islaamka iyo in laga celiyo wax kastoo hor istaaga faafinta islaamka si u gaaro dadka dhan. marka muslimiinta waxay samayn jireen ayadoo la gaarin seefta, waxayna u soo bandhigayeen diinta. haddii ay diidaanna waxay u soo degayeen hal darajaad ka hooseysa taa ay tahay inay heshiis la galaan iyadoo dagaal dhicin oo lagu xirayo shuruud ah in diinta muslimiinta la ilaaliyo iyo in baaqa islaamka uu gaaro dadka. haddii kale waa dagaal, laakiin waa dagaal cadaalad ah, dagaal akhlaaq raacsan oo ku dhisan hadaf sharaf leh. guntii iyo gabagabadii dagaalkaasi wuxuu hagayay masiibooyinka ay geysteen bini'aadamka taariikhdiisa oo dhani oo sii jiri doona ilaa saacadda qiyaamo. marka hadduu bini'aadamku walaalkiis yey u yahay sida uu yidhi Hobbes, marka ha u ahaado himilo ka sarraysa mid lagu tartamayo keliya iyo soo deynta tamarta qarsoon ee cunfiga, iyadoo ay ka sarraysa amarada madaxweynaha, qoomiyadda iyo ganacsiga difaaca waxyaalaha khuseeya dhaqaalaha iyo wixii la halmaala. arrintan ha noqoto mid uu qofka ku kasbado macnaha jiritaankiisa una muujiyo ujeedkiisa oo uu la jaanqaado dabeecadiisa. ha ahaato ilaahay dartiis fii sabiilillaah.